السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح wanaagsan, galab wanaagsan, habeen wanaagsan, wax kastoo ay ku tahay wanaagsan. Kusoo dhawow channelka Surbiyaan channel. Khiyaarteeda sharafta leh waxaan idinla qaybsanayaa galabta insha Allah kimis ama sabaayad aad iyo aad u macaan, aadna u fudud, aadna u jilicsan oo aad ka heli doontaan insha Allah. qaabka fudud aan u sameynayeen hadda ayaan bilaabeynaa biidnillah. halkaa waxaa iigu jira 2 koob oo yaryar oo bur ah. burka adiga qiyaastaada iyo familkaaga ayay ku xidhantahay insha Allah. kadib waxaan kusoo darsanayaa haddii ilaahay yiraahdo waa milix ama cusbo sad hadba u taqaanid insha Allah. maxaan kaloo haystaa halkan ku haystaa waa galeyda shiidan ee yelowga haddaad tacad haysatidna waad isticmaali kartaa. maanta waxa aan sameynaa waa sabaayad ama khimis special aad iyo aad special u galeydii shiidneed waxaan rabaa inaan mataqaanaa wax yar aan shaandheeyo ama aan shaqshaqo. burka sidoo kalena waa soo shaandhaystay ama waa soo shaqshaqday. waa haddii aad jeceshahay wax qashina ma laha, laakiin waxyaabaha yar adaga ku dhex jira ayaan rabaa inaan ka reebo. sidaas intaanoo kaleeto xoogaa yariisa waxaa waaye way yar burburan tahay. intii jilicsanayd ee dixiinka ahaydna waan ku darsaday sidaad arkaysiinba maasha Allah. waxyaabihii qalalnaa ayaan hadda saas ugu walaaqanayaa. kadib waxaan ku darsanayaa malab ama hani hadba kii aad u taqaanid. malabka bedelkiisa sonkorta waad gashan kartaa. ani sonkoraad isticmaasho waa ku darsan kartaa, laakiin aniga maanta waxaan ku darayaa haddii ilaahay yiraahdo malab ayaan isticmaalayaa maadaama ay sabaayadan ama kimistan aan sameynayo ee ii tahay kimis special yaa saas daraadeed malab ayaan isticmaalay. malabku wuxuu ka dhigayaa soft, wuuna jilcinayaa. sokortana waa lamid insha Allah ku darsan kartaa. caano ayaan isticmaalayaa, wax biyo oo ma isticmaalayo oo kale. caanaha wax yar bay mataqaanaa waxay yihiin qandax oo waa soo yar kululeeyay. aad uma qabooba aadna uma kulula, markaa wax yar baan maaragtay aan soo kululeeyay. kadib waan xashayaa ama waan rafaajinayaa hadba kii aad u taqaanid weeyaane. waa kanaasaan ayaan waxaan rabaa inaan mataqaanaa caana hal mar kuma wada daraayo. waxaan sameynayaa hadba wax yar ayaan ku darsanayaa, sababtoo ah haddaan hal mar ku wada daro laga yaabee inay iga jilicdo, laga yaabee mataqaanaa inay iga biyo dhacdo meeshii aan ka rabay. sidaad arkayseen ma dibadda ama baaquliga aan ku qasayo yacni way godan tahay. markaan waa loo xoog sheeganayaa yaa xoog badan waaye, ma daqiiqda xoog badan ama burka mise aniga yaa. markaan waa isdagaalaynaa. dhulka ayaan dhigtay, miiska ayaan saartay oo nadiifii ah insha Allah. saanaana marka waxashahay xoog inaa u xoog sheegtid waaye yaa. burka inuu isagu kaa cabsado waaye, inuu adiga ka cabsatid lama rabo. iftan waaye khiyaarteeda sharafta leh. laakiin xoog ayaan waxashayaa insha Allah si fiican oo ismuuda oo jilicsan. cabaar baan xasheeyey waa kaasaa. kadib waxaan soo qaadanayaa baaquligayga ama dibadaydii saad arkayseen badi baan ugu ceshanaya insha Allah. saliid yar ayaan hoos ka soo mariyey, korna waan ka marinaya haddii ilaahay xiro saliid ayaan dusha ka marinaya. kadib saan mataqaanaa baan sabaayadaydii burkeedii aan ku diyaarsaday oo ay iigu tahay diyaar insha Allah. waxaan sameynayaa inaan bac yar afka uga xidho muddo 10 daqiiqo ilaa 5 daqiiqana aan halkaas ay iigu dabarnaato. aan howlahayga kaliya danahayga kale aan sii qabsado insha Allah. sababtoo ah markaad daqiiqda wax yar dhigtid waxay kuu noqonaysaa way isugu kaa dhacaysaa maasha Allah. taas daraadeed wax yar aan dhigayaa. cabaar kadib waa isku soo laabanayna. yaa salaam walaalahayga qaaliga abaakaasaa halkan waxaan ku haystaa subagaana isticmaali doonaa. halkana waxaan ku haystaa waa galeydii shiidneyd insha Allah. markii hore aan qayb kusoo darsaday, qayb ka mid ayaa ii taala. burkayga saan jileeca ah oo saan mataqaanaaye maasha Allah ayuu iisoo noqday. kaale iska arag waaye. kadib waxaan sameynayaa sida caadada ah ee loo goosgoosto ayaan usoo diyaarsanaya haddii ilaahay yiraahdo dhowr xabo oo isla eg. intii markaas ay ii noqoto ayaan mataqaanaa ka dhiganayaa haddii ilaahay yiraahdo. kadibna waxaan la arkaynaa istaabka saddexaad ee aan mari doono insha Allah. istaabkii koowaad wuxuu ahaa qasitaankii aan soo qasaynay. istaabka labaadna waxaa waaye sidaan jarjarid aan jarjaranayn. marka hadda maxaa inoo galaynaa haddii ilaahay yiraahdo istaabkii saddexaad maxaan qaban doonaa, maxaan sameyn doonaa. kulli xaggana iskaga wada durkinaya insha Allah. waxaan rabaa inaan mataqaanaa meeshii waa ii nadiif saarayni ku sheegayba. kadib waxaan sameynaa haddii ilaahay yiraahdo inaan kala bixiyo ama fidiyo. sidee u fidin doonaa maxaa isdhehaysaa wax bur ah hoos
sida caadada ama marinayo maanta waxay ka shidan tahay subagaas ayaa mataqaanaa lagu waxyar lagu soo la marinaya insha allah waa kaasaa subagaasaa marinaya haddii ilaahay yiraahdo saanaa ku wadaya khiyaaray ma sameynayo ma isticmaalayo wax la dhaho qor kamiseedka ama baarta qoriga sabaayada lagu fudiyo ma isticmaalayo gacmaheyga ayaan isticmaalaya waxaana u kala bixinaya intii burkaani uu gaaro ee kala bixistiisa ay gaarto ayaan kala bixinaya waxaan rabaa inaan u kala bixiyo si saa'id ah oo haddana khafiif ah oo aan dhulka ka arkaysiin waxaan rajeynayaa inaan kaamirada ka arkaysiin waxaan ka dhigay khafiif baan rabaa inaan ka dhigo oo mataqaan aada khafiif u ah dhulka inaan ka arkaysiin ayaan rajeynayaa marka waa kaasa saliidaas ama subagaas ayaan gacmaha soo marsanaya haddii ilaahay yiraahdo intii karaankeyga ee kala bixistiisu ay gaadho ayaan kala bixinaya waxaan u maleynaya waa ujeedin khafiifaan ka dhigay kadib markaan soo kala bixiyeyna subaga ayaan marinaya geesaha dhan ayaan ka wada marmarina haddii ilaahay yiraahdo markaasaas aan u wada wuurinaya kadibna waxaan taqaanaye aan saas meel kasta inaan ka gaarsiiyo subaga ama saliid haddii aad isticmaalaysa laakiin subagaan ayaan taqaanaa waa sabaayad subaga kadib waxaan ku shubay galeyda shiineed ayaan dhexda wax yar kaga shubay maasha allah sabaayada markii subagaan lagu dubaayo waxay noqotaa macaan caraf battery maaragtay maasha allah rooti waxaa jira la yirahdo croissant oo battery ah oo dukaamada laga soo gato intii garanaysa insha allah rootigaas batarkan oo kaleeto ayaa lagu sameeyaa marka sabaayadii maanta waxaan rabaa inaan ka dhigo sidii mataqaanaa croissantkii oo kaleeto oo battery ah maasha allah batarkaasaan marba dhinac ka marinaya haddii ilaahay yiraahdo sidaa aad arkayseen khafiifka aan usoo kala bixiyey kadib saanaa kulligood aan u wada kala bixinaya kuna sameynaya inaan mataqaanaa subagaas dhexda ka mariyo galeeyarna aan ku shubo insha allah xabada labaad ayaan tusaya kadibna waa soo dhameyneynaa haddii ilaahay yiraahdo waa kaasaa maasha allah intii tamartayda ayaan mataqaanaa saa hore inuu ku sheegayba aan kala bixinaya oo kala bixiska mataqaanaa daqiiqda qeybta aan haysaa ay fidniyaasiisa leegtay waad isticmaali kartaa qoriga sabaayada lagu kala bixiyo ama giriista lagu kala bixiyo laakiin saanaa ka fudud sababtoo ah meelaha dhan bay gacantaada wada gaaraysaa wuuna isu kaaleekeysiinaysa khafiifna markaa ka dhigaysid gacmaha ayaa fiican lagu kala bixiyo marka maanta anig gacmaha iiga shidan tahay sida tii hore oo kale unbaan sameeyey khafiif unbaan ka dhigay kadibna subagii ayaan mariyey kadibna galeyda ayaan kusoo shubayaa waa kaasaa adiga baasha muhiimadeeda waxaa waaye inaad si fiican u kala bixisad khiyaaree kala bixiskeeda kama soo hadho si fiican insha allah u kala bixiya haddii ilaahay yiraahdo waa kaasaa subagaasaa marba dhinac ka marinaa waxawaaye markaa kala bixinaysidna ha isu kaala ekaato isdul saar sida sabaayada caadiga oo qof walba mataqaanay caadada u leenahay baa loo sameeya laakiin waxay kaga duwan tahay sabaayada caadiga zaaid u kala bixinaysaa kule sabaayada saan ani uma kala bixiyo markaa normally kamisteena normalka aan sameynayo laakiin tan waa mid special khaas mararka qaarkood aan mataqaanaa sameeyo waa kaasaa idinkana waa inay ka faa'iideynaya sabaayadeeda khaaska saan aan u sameeyo waa kaasaa maasha allah qaabkaasaan kulli kusoo wada dhameynaya insha allah kadibna waxaan bilaabeynaa stepkii afraad insha allah maasha allah tabaarakallah kulli waa soo dhameeyey saana mataqaanaa kusoo wada dhameeyey sidii arkaysiin ayaan soo wada kala bixiyey maasha allah tabaarakallah ilaawadana siinoo siyaadi intii aan haysanina ilaahay oo sii stepkan aan bilaabeynaa waa stepkii dubista waxaan sameynaa sidii un subagayga unba haddana kusii kala bixinaya wax bura ama daqiiqa ma isticmaalay saana gacmaha mataqaanaa sideedii hore maanta waxaa waaye gacmaha gashadanta qaarey gacmaha baan ku kala bixinaya marka kala bixiskii markii hore iyo markan dambe aan dubaayo iyo iskaga kaa khaldamin markaan zaaid uma kala bixinayo insha allah aadka khafiif kama dhigayo laakiin waan kala bixinaya xoogaa baan kala bixinaya aadna uma kala bixinayo mar culays saa-idana ma ka dhigayo khafiif saa-idana ma ka dhigayo xoogaa normal aan ka dhigaya markaan kadib saan inaa mataqaanaa geesaha dhan dhexda meel kasta inayna mataqaanaa kuus ayna ka yeelan siman tahay buurbuur iyo meel yarata in yar ka kuusnaato xalagaa si fiican u bislaanin tartiib gacanta u wada marisa jekintid kadib maqligii aan ku dubi lahaa ayaan mataqaanaaye aan soo saara haddii ilaahay yiraahdo waa kanaa
saana waxaan rabaa inaan mataqaanaaye aan soo dubo insha allah. ma isticmaali doone wax subaga ama wax saliida ah intii aan iyada kusoo kala bixinayay ama burka aan kusoo kala bixinayay oo iyada ku dhex jiro besa iigu bislaanaysaa. wax ka dambeeya oo dufan ah oo ka dambeeya insha allah ma isticmaali doone, maxaa yeelay enaf ayay ii haysataa intii aan mataqaanaa dhexda kasoo marinayay ama intii markaan soo kala bixinayayna aan soo bixinayay ayaa igu filan. markaa wax dufan ah ama saliid ah ama wax kamidna ma isticmaalayo. tartiib waxaan rabaa dabku aada u gaaban yahay, waayo sababtoo ah waxaan rabaa inay si fiican oo isla eg iigu bislaato, inay hal meel ka bislaato, hal dhinacna ayna ka bislaanin ma rabo. qaadada ayaan saa ugu riixayaa, sababta aan ugu riixayo waxay tahay inay kor usoo kacdana ma rabo, inay si fiican oo tartiiba u bislaatana waan rabaa oo meel kastana ay ka bislaato. waqti ayaan siinayaa, waqti iska sii. haddii mataqaanaa dabka aad ku badi sidoo kale waxaa laga yaabaa dhaqso inay kaa gubato, mataqaanaa meeshii laga rabayna aysan gaarin maxaa la dhahaa biseelkiisii. halkaasa waa ka qaaday maasha allah, qurux waaye. xabadii kaleeto ayaan mataqaanaa weli saas uun ayaan khiyaaray in tusaaya. muhiimadda waxay tahay qaabka kow aan u qasayay iyo wixii aan ku daray inaa ogaatid, kadibna aad aragtid qaabka aan u kala bixinayay. tan ugu dambeysana oo dubista ahna qof waliba wuu garanaya mataqaanaa dee sidii sabaayad loo dubo ama kimis loo dubo insha allah. laakiin muhiimadda ugu weyn ee mataqaanaa walaalahayga aan idinla qaybsanaya waxay tahay inaa ogaataan ingredient-ka ama waxyaabaha mataqaanaa raasibiga aan ku darayay iyo qaabka kow aan usoo xashay iyo waxaas oo dhan. kadibna dubista wax iska iisi, qof walba uu fahmaya inuu tartiib dabka u gaabiyo, tartiib uu u dubo. haddii aad sideedoo kaleeto ama intii aan hadda isticmaalo aad isticmaashidna uma baahanaysid wax mataqaanaa dufano oo kale inaa isticmaashid, ama subag ha ahaado ama saliid ha ahaado, waa markii aad dubaysid. waxaa la rabaa keliya inaad mataqaanaaye aad intii hore ee kuu soo marsanayd mataqaanaa aad kusoo marmarsay inay kuugu dubnaato. markaas waxaa kaa saacideynaya inay kuugu dubnaato dabka oo aad u gaabisid. haddii aad dabka u kululeysid wuu kaga gubanaysaa. marka waa kaasta akhyaaray, qaabkaas fudud ayaan usoo dubayaa oo mataqaanaa aan ku wadaaya insha allah. I hope inaad ka faa'iideen, tijaabin doontaan. haddii sawaayadan ama kimistan aa ka heshay qaabkan fudud ee carafta badan, caraf ayay kasoo uray, sababtaa wixii subag lagu daro way carfaan always. marka qaabkaas fudud waxaan jeclaanaa insha allah, waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin kana faa'iideysan doontiin familigiina dhammaantood, aada uga faa'iideyneysiin ulana sheergareyneysiin walaalihiina kale ee asxaabta aad tihiin ama faamilka aad tihiin. sidaan yare fudud mataqaanaa inay mataqaanaa sawaayad macaan oo jilicsan ay u duban karaan ama mataqaanaa u arkayaan. aad iyo aada u mahadsantiin walaalahay. waxaan idin leeyahay maxaad naga ilaawina subscribe-ka iyo thumbs up-ka. subscribe wuxuu kaa caawinayaa inaad mataqaanaaye kuu imaado wax kastoo aan soo gelino. sawaayadeeni sidan ayay ku noqotay, 3 qaybood ayay noqotay. runtii waxaa waaye waa aada u jilicsan tahay, soft waaye, soft. ilmo yaraa cuni karo, qof weynaa cuni karo, maasha allah tabaaraka allah waaye. aada iyo aada u jilicsan tahay, aadna waa u macaan tahay. waa kaasaa ujeediin inay jilicsan tahay, saas u kala go-eysaa maasha allah. soo uma jeedaan maasha allah, sabaayadan caadi ahayn waaye runtii aada iyo aada u fudud. aada iyo aada amaasantay walaalahayga. bilis haddii aan nagu cusubtay marka ugu warsa naga subscribe ka lana wadaag asxaabtaada. asalaamu calaykum waraxmatullah.